Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa lagu weeraraa guryahooda iyo goobahooda ganacsiga habeen iyo maalin iyadoo ay sidaasi tahay ayaa waxa haddana ku soo qulqulaya dalkani Koonfur Afrika Soomaali aad u tiro badan kuwaas oo muddooyinkani soo food saartay shaqo la'aan baahsan wadankan Koonfur Afrika waxa uu kamid yahay dalalka Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay caalamka ayaa markii ugu horeysay waxa ka curtay muujad shaqo la'aan baahsan oo ku habsatay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhawaan soo gaaray dalkani Koonfur Afrika Maxamed Cali Maxamed waa wiil dhalinyaro ah waxa uu kamid yahay boqolaal Soomaali oo bilooyinkii ugu dambeeyay soo gaaray magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika waxaan wax ka weydiinay nolosha Soomaalida ee South Africa mar aan kula kulanay xaafadda Mayfair ee xaafadda ay Soomaalidu deegaanahan ugu badan yihiin waxaana yiri Maxamed waxaan mid South Africa waxaan joogaa muddo 20 cisho ah waxaan halka kulmay muddo shaqo la'aan fara badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa yaalo wadadooda aragtay dhibaatada taalo iyo meesha sida loogu soo sheegay oo ah si aan maanta aanan halkan loo dul qaadan karin loona adkeysan karin halkan waxa taala dhibaato fara badan dukaamadii la xiray wadamadan aad arkayso dhibaatooyin fara badan ayaa iska yaala oo dhanka nolosha ah marka waxaan u sheegi lahaa in meeshan ay tahay meel iska dhibaato badan oo Soomaalidana nolosheedu aan ku fiicnayn waxa yaala dil dhibaatooyin fara badan marka waxaan uga bixi lahaa in Soomaalida ay wadankooda joogaan qurbo waa dhibaato aad u fara badan ayaan kula dardaarmi lahaa walaalaha sidoo kale waxaanu la kulanay qaar kamid ah Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika waxay sheegeen in South Africa ay ku soo sirmeen taasoo ay ula jeedaan in sidii looga sheekeeyay ahayd in shaqooyin diyaar ah oo xogaha dhaadhac fiican leh ay ka helayaan isla markii ay cagta soo dhigaan wadankani Koonfur Afrika aysan muuqan oo ay fajac iyo filan waa la noqotay in muddo 2 bil ku dhawaad ahna ay qaar kamid ah Soomaalidani ay shaqo la'aan la joogaan magaalada Johannesburg wadooyinka waaweyn ee xaafadda Mayfair ay Soomaalidu deegaan ahaan ugu badan tahay ee bartamaha magaalada Johannesburg waxaad ku arkaysaa dhalinyaro cusub oo Soomaaliyeed oo si koox u wada socda kuwaas oo baadi goobaya cid ay asxaab ama ehel wadaag yihiin oo ugu yaraan ka helaan goob ay ku noolaadaan shaqo warkeeda iska badaa iyadoo hoteelada magaaladani ay buux dhaafiyeen bilooyinkan dambe dad cusub oo soo galooti ah shaqalaantan soo wajahday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku soo qulqulaya dalkani Koonfur Afrika kuma koobna rag oo kaliya waxaana jira sidoo kale iyagana qaar kamid ah dumarka Soomaaliyeed oo iyaga iskood u yimid wadankani Koonfur Afrika in iyaguna ay shaqalaanta qayb ka yihiin waxayna shaqooyin yar oo aan sidaas u sii burnayn isugu soo biyashubatay noloshooda taasoo ay ku kaliftay in dumar badan oo ganacsi waratahayay guryaha iska joogaan halka qaarkood ay goobaha tuulooyinka ay galaan si ay nolol maalmeedkooda u soo dhacsadaan waxayna sheegeen in shaqo la'aan iyo dumarba ay u saameysay Axmed Shukri oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa maran wax ka weydiinay shaqo la'aantan baahsan ay soo food saartay Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika waxa uu sheegay in ay ugu wacan tahay tirada Soomaalida oo ku nool dalkani oo laba jibaarantay iyo ganacsiga dalkani oo iskiis u yaraaday kadib markii ay dhamaatay ciyaartii koobka adduunka ah ee wadankani uu martigeliyay si kastaba ahaatee kumanaan dhalinyaro Soomaali ah kuwaas oo ka soo hayaamay dagaalada dhamaadka aan lahayn ee ka soconaya dalka Soomaaliya ayaa sanad kasta soo gala dalkani Koonfur Afrika kuwaas oo dhibaatooyin xanuun badan ka soo mara tahriibta dheer ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo South Africa waxaana taasi u dheer in dil iyo dhaawac boob loogu geysto gudaha dalkani Koonfur Afrika iyadoo imanka ayba ugu sii darsantay shaqo la'aan aan hore loo arag oo soo food saartay Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika Abdinaasir Soomane telefishinka caalamiga Universal TV Johannesburg Koonfur Afrika